waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij ka mid ah barnaamijyada aad dheehataan oo aanu la wadaagno aanu u aragnana inay ku habboon tahay inaan nala wadaagtaan oo aan soo gudbinno. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa inta badan codsiyo gaara soo qora ama qoraallo ama qaabab kale oo ay ku weydiinayaan soo saarayaasha barnaamijyadeena inay qaar ka mida mararka qaar ay ku soo qaataan. barnaamijkan isaga ah waxa uu ku saabsan yahay waxay dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan qaarkood dhaqan xumada ama dadka qaarkood u yaqaanaan magaalo joognimo xumo. laakiin marka la isku soo xooriyo waxay isku imanaysaa waxay bulshadu u badan tahay oo wanaaga in dadka qaar aysan ku dhaqmin oo ay kaga gedisan yihiin ayagoo isku degaan la jooga ama isku goob jooga. taas ayaa marka waxay keentay in la yiraahdo dhaqan xumo weeyaan waxa iyo waxa in lagu kaca ama waxa weeyaan magaalo joognimo xumo in waxa iyo waxa lagu kaca. bulshadu sideedaba waa bulsho meel degan, waa aabe iyo hooyo iyo caruur dhashay iyo dad darisa iyo dad degaanka wada degan iyo dad degaanka ku soo biira waqtiyo kala duwan iyo dadka booqda oo u taga iyo dadka oo samaysta munaasabado kala duwan iyo isu imaatino oo ujeedku uu yahay dhaqan xumida iyo anshax xumida mararka qaar la dhihi karo ama magaalo joognimo xumida in laga arki karo meelaha ay bulshadu degan tahay ama ay ku kulanto. dadka qaar way iska waaniyaan oo waxa ay yiraahdaan waxaasi ma fiicne qof yahow iska daa ama koox yahay iska daa ama dadka qaar waxay u arkaan waxa ay sameynayaan inay yihiin wax wanaagsan. dadka qaarna waxay u arki karaan inay yihiin wax la samayn karo ama la iska dhaafi karo. bulshada Soomaaliyeed marka la fiiriyo waa bulsho diin leh, dhaqan leh, asluub leh oo wanaag leh oo ah waxyaabaha lagu soo barbaaray jiilba jiil la iska dhaxlay. markii dalka la joogay mar bay ahayd, marka dibadaha la joogana ummad kale ayaa lala joogaa, laakiin weli adugu waxaa tahay qofkii oo dhaqankaagii iyo diintaadii marna ma ka tegaysid. waxyaabaha keena dhaqan xumida ama waxyaabaha ay dadku yiraahdaan magaalo joognimo xumo bilmatal dadka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa waa dad aad u wardhaadheer oo iyadoo la joogo meel maqaayada oo ilaa 40 qof oo kala duwani ay fadhido ajnabi ay ku jiraan iyo dadyow kala duwan oo ay dadku laba saddex afar u sheekaysanayaan ayaan haddana warkooda la maqlaynin. marka laba qofood ayaa imanaysa oo aan isku meel fadhiisanaynin ama qofaa dhici karta meel geesa fadhiyey inuu arko qof kale oo geeska kala fadhiya, waxaana u dhexeeya ilaa 40 qof qiyaastii 35 ilaa 30. qofkii wuu la sheekaysanaya uu salaamaya sheeko beri hore ama su'aalo ayay isweydiinayaan. hadalkaasi wuxuu dul marayaa dadkii awal meesha hore u fadhiya oo iska deganaa. qof kasta oo dadkaa ka mid a midab kasta uu leeyahay iyo meel kastuu ka yimid wuxuu eegayaa labadaas qofood oo Soomaaliyeed qaabkay u hadlayaan iyo sida warkooda u dhaadheer yahay iyo sida nidaamkoodu yahay. taas oo u arkayaan dadka halkaa fadhiya inaysan ahayn wax wanaagsan ama qaab fiican in qaabkaas dushooda looga hadlo iyadoo ummaddan oo ilaa 40 ay meesha fadhido. waxaa kale oo jira dad booqda guryaha Soomaalidu waa ay isbooqataa, qaraabo ayaa isbooqanaysa, asxaab ayaa isbooqanaysa. gurigii baa dadkii laga furaya, soo dhoweyn ayaa loo samaynayaa, fadhigii ayaa la fadhiisinayaa, kadibna waxaa loo diyaariya dabcan sida caadada ah ama shaah ama qaxwo ama cabitaan ama waxyaabo macmacaana. ilaa hooyadaas iyo aabbaha guriga joogahay waa dad xil ka mudan dadka asxaabtooda ama walaalahooda. dadkii yimid waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay noqdaan dad martiya. qaarkood markiiba martinimada way ka baxayaan iyadoo weliba ay arrintaasu arrin aad u dhibaysa ay tahay hooyada guriga ama aabbaha guriga. way istaagaysaa, derbiyada ayay fiiris ku bilaabaysaa, buugaag meel saaran ayay fatashaysaa, way soo baxaysaa, jikada ayay tegaysaa qoftaa dumarkaahi, qaanadihii ayay eegaysaa, maxaa waaye alaabtii idintaalaahi way ka soo baxaysaa. hooyada qolkeeda laga yaabaa inay soo gasho, armaajadeeda inay furfurto oy tiraahdo duruucdaadu aaday u badantaha ama waxaan waa laga tegay iyo waxyaabo lamid a. waa hagaag. qofkii kale ee meesha fadhiya wuu yaabaya. qofkani markay ku soo laabato meeshii ay fadhiday, telefono ayaa reerka u soo dhacaya ama kan gacanta ha noqdo ama ka guriga. soo dhicidda ay soo dhacaan jawaabteeda waxaa iska leh dadka guriga iska leh. qofkani ma fadhi karo inuu telefonka ka jawaabo mahana. halow, assalaamu calaykum, yaa rabteen? waxa waaye hooyadii guriga waa mashquulsan tahay, maxaan u sheegaa? waabay raagaysaaba qoftaani. arrintaasu waxoogaa waa dhaqan xumo dadka qaar say u arkaan ama waa magaalo joognimo xumo. waxaa dhici karta reerkii oo gurigoodii joogo marti loo yahay in albaabka lasoo garaaco guriga. haddii albaabka guriga lasoo garaaco furitaankiisa iyo furitaan la-aantiisa waxaa iska leh hooyada guriga joogta ama aabbaha guriga jooga. gabadhii martida ahayd ayaa markiiba baxayso, furihii qaadanayso, albaabkii dadkii ka furayso soo gelinaysa. arrintaas lafteedu waa culays kale oo dhaqan xumo lagu tilmaamo uma roona hooyada guriga iyo aabbaha guriga. waxaa jira mararka qaar xafladaha marka la dhiganayo aroosyada
waxyaabaha qoraalada aan ku aragnay reer baa aroos qaba, wiil iyo gabar baa iscalmaday, labada waalid ee labada dhinac arooskii bay qabanqaaminayaan, kharash badan bay bixinayaan, arooskii baa la tegayaa. Arooskii markii la tago oo dadkii martida ahaa lasoo fadhiisiyo, waxaa imanaya dumar ilaa 4 ilaa 5 oo isla socda oo cid soo dirtay aysan jirin.